shirkadda saliidda ee Aramco ee dowladda Sacuudigu ay leedahay ayaa sheegtay in faa'iidada ay samaysay ay aad kor ugu kacday waxayna faa'iidadaasi gaartay 90% saddexdii bilood ee ugu dambeeyay taasoo ka sare martay faa'iidadii ay horay u saadaaliyeen inay xilligan heli karaan waxaana arrintan sabab u ah dagaalka Ukraine iyadoo ay badatay baahida loo qabo xaddiga shidaalka la iibsanayo iyo saliidda la sifaynayo ee suuqyada caalamka sidaas ayayna shirkadaha shidaalka ee Sacuudigu u sameeyeen macaashkii ugu badnaa muddooyinkan kadib duulaankii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine iyo cunaqabataynadii kala duwanaa ee lagu soo rogay dalka Ruushka ayaa keenay inay sare u kacaan baahida shidaalka ee dunida oo dhan waana midda keentay fursadaha ay ka faa'iideysteen shirkadaha shidaalka soo saara iyo kuwa sifeeya oo ay ku jirto shirkadda Aramco madaxa fulinta ee shirkadda Aramco Amin Nasir ayaa sheegay in shirkadiisu ay filayso in baahida shidaalka ee dunidu uu sii socon doono 10 sano ee soo socota inkasta oo laga yaabo in baahida sarreysa ee haatan ka taagan suuqyada caalamku inay sii jiri karto waqti kooban oo kaliya sida ay sheegayeen saadaalaha qaarkood faa'iidada saafiga ee ay samaysay shirkadda Sacuudiga Aramco ayaa kor u kacday sanadkan iyadoo samaysay ilaa $48 bilyan saddexdii bilood ee u dambeeyay halka ay sanadkii hore isla bilahan oo kale ay shirkadda Aramco samaysay dakhli saafi ah oo gaarayay ilaa $25 bilyan